kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta ku xiran kulmis media waa markale iyo muuqaal cusub daawada halkan waxa kuugu soo gudbinayaa mar ay hadda koor ku sigatay in is disho oo ay nafta isdhaafiso fanaanad hore ahna mid kamid ah wariyaasha lagu jecel yahay xilligan aynu joogno sidoo kale waxa ku maqli doontaan sababta ku kalaftay in ay is disho iyo sida uu Ilaahay ugu badbaadiyay in ay nafteeda isdhaafiso taas oo ahaan lahayd dambi aad u weyn waayo anaga waxaan ahay dad islaam ah daawada waxaad isweydiinaysaa waa kuma qofkaasi si aad u ogaato qofka uu yahay muuqaalka daawo sidoo kale ha iloobin inaad nagu soo biirto oo subscribe dhahdo channelka yaan warka ugu daalin ee daawasho wacan waa kuwa badangala okay maalintii aan rabay inaan isdilo marka maxay sameeyay temple meel la dhahayaa jirto laba station Holborn iyo temple bushaas u dhawa Holborn marka meel la iska tuuro male laakiin temple jidka hadaa goyso river Thames ku yaal wabiga Thames dabaalna ma aqaan ani I want to waa ogahay inaan dhimanayo dabiyaha isku tuuro way dabaaladka ka baxsan ma badliida meesha oo darbiga istaag ana istuura rabaa laakiin caloosha saa'id u dheer haddaan dhoo caloosha xanuunays ma soo gidi kari qaabka isku tuuri lahayn ka fikiraa marka bad waa iga dhamaatay in istuura raba I want to die weliga isma lahayn ina istisho ku fikir doonta marxaladaas aad gaari doonta xanuunkaan keenay ina xanuunsan hel ma ogi waqtiba ma leh dadka BBC ka shaqeey kulligood waa ogaan time ma leh waa fasax sanadeedkaad qaadanaysaa fasax sanadeedkaad qaadanaysaa baasaboorkayga Soomaali waa fasax sanadeed haddaan qaato xitaa saddexdaan cunug iyo ninkaan iskagama tegi karo gabaraa jirta xitaa habaruha markaas aan keena ay joogto iyo labada asaga u dhalay iyo kii kalena caloosha ku sitaa haddaan tagaayana baasaboor ku baxo ma qabo because I am not British maahane xataa residency indefinite leave to remain xataa ma haysto baasaboorkayga Soomaaliga wadanka ma laga aqoonsano wadankayga 4 sac waa is cunayaan meeshaad joogtay no rajo amina meeshaad joogtay BBC dhibaatada ugu badan kaaga socoto Yusuf Garaad ma aaminsan tahay inuu adiga shakhsiyan si gaar ah ku beegsanayay mise inta la kulmayba wariyaasha ka soo shaqeeyay BBC dhibaatada inta ugu badan ka sheeganayso lamida ka sheeganayay horta aniga dabeecadeyda dadka si gaar adiga lagu beegsanayo aaminsan tahay maya dadka ma ahay horta dabeecadeyda laakiin aniga sida aan u maleynayo waxa waaye qofka markuu asaga le isma hadiyo Yusuf ani muu malaynayo xumaana uu dhashay inay tahay waxaan u malaynaa dadka qurbaha ku xumaaday inuu yahay ay kasdaan ma wallahi waxa ahsan u sameynay laakiin ama aan uga weerweernaay but that time he was very bad he was really very bad waxa kaaga daran aniga gabar ahay halka gabar oo markaas joogta gabdhaha gabar kale joogto Yasmin la dhahay gabar kale ka dhahay gadaalka imaad waxa soo dhan iska dhahay qofka full producer ka ah ee joogta gabdhihii hore kalena waa bixin Jawaahir Suleymaan Shamsabo kullu waa bixin qofka oo joogtay oo halka gabar oo codkeeda aad loo maqlay ta iigu darneed waxay ahayd libaha ah marka dadka banaanka iga maqlay because they don't know ina kamid waa dhageysanaysan ma ogidin waxaan ku suganahay ana kamid ah dadkii ku dhageysanay aniga dhexda ka dhimanay because abuse kugu socdo ee bullying kugu socdo qofka waa in qofka fiir qofka marka shaqada laga buluusay oo gurigiisa degan yahay qofka waa noolaa karaa gurigiisa degan laakiin labadiiba laakiin marka gurigana laga haysto balaay ka haysto shaqadana balaay ka haysto meel aan ku sabab garoobaysa male ma fahamtay ewerka horna uma dhalan meelaha warwareego qof wuxuu dhalatay moogtahay qofka uma dhalan anaga dadka meeqsana igu dambeys intaas soo ma aan arkay xumaaga ma maqnay laakiin ma arkin ba okay amino adan ka dhex galo BBC da waxaan xasuustaa dad badan oo dadka isla soo shaqeysayna inaan waqtiyo badan aan sheekaysanay oo ka maqlay way ogaayeen ana u sheegay dhibaatadaas hatta ku ajnabiga ogaay aniga abuse kale oo lagu hayo shaqada dhibaatadaas dhaw ogaay taas ku weydiinaya waxa weeyaan intooda badani deegaamada yaabana oran intooda badan deewaanay ahaydba Somaliland iyo waqooyigan dhahnay bay ka soo jeedeen iyagu waxay iiga sheekeyn jireen inay aaminsanayeen inuu Yusuf Garaad hab marka hayb sooc oo kale ama kala qaybin oo kale uu iyaga si gaar ah u cadaadin jiray u beegsan jiray adiga hadaba aamina ahaan hadaad Yusuf Garaad sida dadka la isugu tiriyo magaalo ka wada timaadeen oo waliba iskuna dhawdihiin ba tan toos u nidaahnaba ma u malaynaysaa taas inay waxna ka badbaadisay ama aad wax at least dadkan wax dheeraydood wuxuu ku dhaantay adiga ku naxariisan jiray
iyadoo hadda hadalka xumays iyo maaragtay ugu roonowba ayna ahayn magaala iskala imaateen le ma noqonayso marmarsiyo excuse ma noqonayso yuusuf garaad muu malaynaa inuu xamar ku dhashay inuu beledweyne meelahaas ku dhashay marka hata ka dhigba inuu ku dhashay laakiin kuwa waqooyiga hadday u arkeen in la haybsoo aqoon gaar aniga asaga isku malayn walaalkiisa aqin asaga ka yar isagu waa naga weyna hortaanu iskuulka baxay oo midda kale qof kasta dabeecada jirto qofka kale ku darto yuusuf dadka baxa oo baararka la farfariisto oo raaca anay ma ahayn ani waxaan ahaa gabar marwa oo la qaba marna waxaan ahaa single mom garooba oo ilmaheedii qofkii lacagta ugu haysay rabto inay tiigsato oo ilmaheeda kasoo kaxaysato I don't have time ma haynin aniga Yuusuf ku raaco restaurantada kula fariisto Yuusuf wuxuu ilaalinayay dadka asaga ka daba dudukada aniga waxaan ilaalinayay shaqadayda ani waxaan ilaalinayay inuu boss yahay 8 hours ka BBC u shaqeynay bas sida runteena taas waay waxa aniga aan ku soo jiito asaga u raaco meel cabitaan kala soo cabo baararkii night club-yada wuxuu aadi jiray u jeclaa u raaca aniga ma ku jirin I never been night club I was fanaanada ah laakiin never been night club waliga ma tagin aniga night club so aniga marka saaxiibtinimo kale ani isaga igala dhaxaysa ma jiro laakiin ani sukan ku dhameey ani taa u malaynaayo waay ani taa u malaynaayo aniga la buugan ka qoray arintayda taa u malaynaayo waxa waay Yuusuf dabeecadda oo dadka dhan ku abuse gareynaa aniga ugu abuse gareynaa laakiin aniga degree fara badan aan dheera koo gabar aha laba waan ka nuglaa saddex wiilasha ila shaqeeya waxay ahaayeen dad asaga shaqada kaga soo horeeyay laakiin aniga waxaan ahaa asaga shaqada kaga dambeeyay Soomaali badan maadaama barnaamijku Real Life Soomaali badan ay aaminsan hawiyaa la soo qoray Yuusuf Garaad iyo hawiyiisa anuu ma aqoon waliba markuu uu bahalka dhiganay ma garan iska dhaaf asaga qabiilkiisa aniga qabiilkayga ma garanay mana aqoon gaar ah uma lahayn Yuusuf aniga ma fahamtay aqoon gaar ah uma aanan lahayn saas la ajrigad waxyaabaha quruufaadka ah meelaha la wareejinayo ma jirin waxaan calafaa iyo galay waa niga idin kaga soo sheekaysaa ku hela calafkaasaan ilaahayaan uga abalhayaa ma fahamtay in tuu imarsiyay markii aan fiiriyo iyo wixii maaragtay wanaagahay asagu uu doonayay in xataa somehow xataa haduu doonayo somehow in wanaag loo haayo tuu imarsiyaa ka daran he abused me he bullied me aniga wuu i bulli garay Yuusuf si cadow ii bulli garay so television ma so wadan British ma joogno oo maxkamad maxaa ka furanta dadka dhaxay kula ma dacwayso it's not that easy because wuxuu wax ku bulli garaynay waxay ahayd baawarka BBC da ay siisay hadda waa kaas waxa ay yiraahdo hadda bal waa kaas waxa ay dhaho oo raggi kale oo jooga oo nafta u keenay Cabdisalaam Hareeriye waxa dhaho ta ana weligeey ilaaban waxa markii Oxford University nalaga casuumay oo Cabdisalaam Hareeri ninka la yiraahdo maxaa la dhahaa wasiirka markii dambe noqon jiray Cabdiraxmaan Caynte dad fara badan Mary Harper gabadhan mar walba Soomaaliland tagto buuga Soomaaliya ka qortay kulina macsuud aniga waa la xushay waxa ay xushay xafiiska Ingiriiska oo markaas Soomaaliya inuu u qaabeeyo markaas xafiiska la sameeyay ya UK oo xafiiska UK ka furo oo Soomaalida arrimaheeda qaabilsan markaas la furay dadkii laga la tashanayay ku jiray wala casuum because waxa la casuum jaba ay maqleen dadkan waa ka dhaga dheer yihiin dad aan casuumaad gaar ah la soo diray wuxuu isku dayay inuu yimaado casuumaad waxa lagu yiri ninka dhan la rabo inuu ogaado waxa la ogaanay how media kaga qayb qaata sidee media kaga qayb qaata dib u dhiska dalka iyo burburinta ayuu ku saabsanaa workshopkaas Oxford University lagu qabta inta soo maalmoodaan jirna waa ninkii inta telefoon markuu asagu meel ka soo galay waa wiil kale walaalkiisa oo iska wariyaa Ilyas la dhahayaa imaaday anigu xumaan hadda wiilkaas oo ugu sameeyay ma jirto laakiin Yuusuf markii inta isoo wuxuu BBC afkaada kuma hadli karto BBC halkan ma uu joogan ku aniga aniga halkan BBC ma uu joogaba myself aniga personally la casuumay hada i weydiiyaan sida meesha looga dhaqmana dawaa sheegaya markaas soo noqday waxa uu diray wax la dhahaayo qofkan macnaha shaqada ku xad gudubta amal markii aan gudiga u tagana wixii waa socon waayeen waa fikray markii ma taqaana how many times aan qoro warqadeeda iscasilaad oo aan gudbin aadan nuux dhul ilaaha qarso twice asaaga cili aadan ilaahay qarso maanta waa nool nin xataa qabri ku jiro marqaato ma soo qabsanayo asaaga cili waana haya warqadii koobigood oo dhan and I will print it out on my book no ku daabaca wuxuu weeray aamino
ninkan BBC ma leh asaga ma laha adiga gabar shaqaystata xaaladaha aad ku jirto aad ku raadto single mom inaad tahay waxa aan ognahay ninkan dartii shaqada hooga tagin shaqada hadii laga tagaayo ama waa laga wada tagaa shaqaadna ka tagay ama asaa kaligiis tagay markii dambe dhacday adigoo wada dareerteen somehow ilaahay iridu furi doona abay laakiin aniga ma joogi karin ma adkaysan karin ma karatay aminoy waxaan ka maqlay qaar ka mid ah wariyaashaad isla soo shaqayseen aad baan uga xumahay inaan intaas oo dhan aan kugu celiyo arrintan waxaan ka maqlay in adigoo Luton degan oo aad uga fog BBC-da inuu maalmahan tareen ku shaqeynay sida Sabtidii iyo Axadda uu kugu khasbi jiray shaqada kugu qori jiray iyadoo Ilaahay naxariisto uu ka yaagtan deganaayeen dad fara badan ay u dhawaayeen oo waliba ragihi uu adiga ku dooran jiray si uu kugu ciqaabad Luton uga timaado horta wax yar waxa waa Luton waxa uu dagay waxay ahayd aniga markii aniga aan ninkii kala tagnay horta waxaan gabadha 27 jeer 27 jeer maxkamadda Ingiriiska la geeyay idoo ninkeedu dacweynaa ah yani ninkina ma ii qabin waa ifuray uu dacweynaa because markuu dacweynayo he has another name another wuxuu magac kale blade of birth kale waxa kale inaana aniga shaqaysano nolosha ciriir iiga dhigo ilmihiisna aniga korinayo ma fahmid ani struggle badan aan soo maray magaceeda waan ku talagalay maanta inaan sheego struggle-ka aan soo maray wax la qarinayna ma ya okay xumaan uma qabo nin Yusuf aan xumaan u qabin kanaan xumaan u qabo but my life markay tahay qasab waay my life illa sheegay in la qoro ee kayd noqoto lagu waana qaato gabar kasto aniga iga dambaysa oo sideedoo kale ta mudan doonta waa huba inay mudanayaan waa huba kumaan kun inay haddana mudan doonaan ma garat 27 jeer aniga defendant af Ingiriis waxa lagu dhahaa maxkamadda markii lagu qofka dacwada loo haysto oo isdifaacay qareen ma awoodo because ilmihii aan dhalay aan ka bixinaya kiro aan ka bixinaya naagta gabadha ii heynaysa lacagteeda aan ka bixinaya waxba aniga xataa dhar fiican ma gada karo by that time ya markaas waxa lagu dhahaa mushaarka kor la fiirina legal aid xaq ma u lihid maxkamadda markaa kugu saaraya 7 qadar kale saara waxay taa maxkamadda sharafteeda Ingiriiska maxkamadiisa sharafteeda hadaad ilaalin dambi aad lahayn xataa waa lagu qaada inaad dhar suud madow gashato isdifaacdo muxuu markaa Ingiriiska aqoonina isku difaaci noqotaa because qareen ma yeela waliga qareen ma yeela maya aamino saashid waxay tahay isagu muxuu maxkamadda 7 sababta maxkamadda waxa waay ilmahayga ima tusto ninkii ay dhahay adu markaa mid u diidaa goormuu rabaa inuu arko laba maalmood week maalintee sabtay axad ha u yimaado ma imaanayo ilma ma rabiyo anaga waa la rabaa believe me ma ilma ma laba bari markuu u yimaado asaa maqnaaha maxkamadda maxaa ku qoran maxkamadda kood oo dhan soo saaray maxkamadda amar maxkamadda soo saar waxa ku qoran hadii labadiina mid kamida uu jabiyo go'aankan waa inay halkaas ku istaagtaa oo maxkamadda la soo noqdaa sababta 27 jeer maxkamad la taaga waxa waa laba bari markuu ilmaha wado oo maqnaa ma rabiyo wuxuu rabaa inuu guriga soo galo oo sida bariga oo aamino qabo kale shaah cabo oo lugaha kala fiirsado oo musqusha iska galo oo iska soo baabaashaan oo xaq ku dukaanada ajnabiyan kala hawad ajnabiyan kala naani adiga isku hormarqayno dhaqan diinna ma aha dhaqan Soomaaliyeedna ma isku hormarqayman abay caruurta say waa raayaan adiga saata tahay inaan ma bii qabtid caruurta say waa fiican yihiin haddii aniga aan nafteedu u yaabo oo arka inay sakaraad ahaan dhimar ragabana anaaba dardaarmayo dhahay ninkaas dhalo meeshaas degan hala siiyo ilmaha ya laakiin ay hormar marqaysama ah 27 jeer maxkamad Ingiriis liigay anigu qofkii wadankan wax keena ah sharci buuxa leh anigu lay magan gelin asaga because magac markuu isku dhiibay qaxooto iska dhigay oo tax payer oo canshuur bixinay 27 jeer aqbalay si aniga Soomaalnimo u ilaaliyo anigu dacway kare waa dhihi kare this guy wadankan waa keenay magacaas I will never ever say ma dhihin aniga adise ku garaweysa marka adoo anigina iga dhalin badan tahay ma aan ahayn say ku garaweysa maxaa aniga inta tura maaha ninka haduu kugu xumaaday labadiina la isku makiin tolin abay hooyadan ma dhal Soomaali Maxamed isku tiin Soomaali Samatra Soomaali Farax whatever you are but laakiin waxa ixtiraama waxa waa marka Nasri Salman iyo Sulaaqa bari ay weynaadaan sida hadeer oo kale ya habartayna adoogan xirtay ma la dhahayo absolutely I don't want that because hooyaday aabay si kasto isu khilaaf abartay adoogay ma xirin maxkamadda qoyska aan jirto ya sharkeyga noo cadaada rabaa maxkamadii aakhirkii maxay ku soo gabagabowday ma sababtaad markaa ugu maxkamadda soo gabagabowday markii la arka maroo inuu igeynayo oo ilmo ima tusta leeyahay ay waxay la yiri gabadha la xaal hadda kadib
maxkamad haba keeninba ha imaanin maxkamadda gabadhaan la xaal waxba kuuma diidan gabadha ilmaha waa ku tusay anna maxaan sameeyey meel waxaa jirta guardianship la dhahayo oo ilmaha lagu hayo because aniga ninka shalay idoon waa u sheegay xataa abuseka ninka shaqada igu hayo waa u sheegay waxaa walaalow aniga labadiina ninkaas shaqada unbuu madax ka yahay adaa iga xiga adigu hay abusin adiguna ha iigu darin kii kale meesha ii fadhiye laba abeeso aniga midna shaqada ii fadhiya midna waxaaga maba noolaanaye wuu maqli waaye waxaan ku iri marka adigu shal haddaad aniga ixtiraami lahayd ood ii naxariisan lahayd maanta aniga maxay toon kaama fogaa aniga waxaan sameeyey saanan dibrasha dambe iigu dhicin saanan river Thames dambe iyo webi dambe isku tuurowgiisa iigu soo dhicin saanay banaaya iigu soo dhicin waxaa sameeyey inaan arag inta ilmahayga koraayeen inaan ninkaas indhahayga ka qariyo oo meesha caruurta lagu haayo u geeyo ilmaha 2 hours lacagta hadda qaybteyda la baxo asaa hadii wax laga qaado ha laga qaado maanta oo social service geeskaas fadhiisay baldheer ilmiyaas la fiiro hadda reviewgii wixii la qoray maxkamadda lagu celinaa maxkamadda waa akhrine waxay arkay wax dhibaato oo meesha aan ka jiraba inayna jirin maxkamadahan abaayo qofku markuu isagu ku dacweeyo oo legal aid iyo qareen free yahay dadka canshuurta bixi lacagtooda waay waxaa lagu arkaa inaad public fundkii dadkan wadooyinka loogu dhisi lahaa waxbarashada loogu kaalmeyn lahaa inaad wasti garaynayso ood khasaaranaysaa lagu arkaa mala ogola marka dambe waxay noqotay gabadha la xaal ila yaraa gabadha la xaal maana meeshaan ku arkay aboo maya gurigaan ku arki maysid baraf hadda ay xataa inta ku arkay waxa gooy guriga ugu arkay guriga anaa degan aniga isma qabno marka inta xumaan imaan lahayd magaceedii ilmahaaga intay yaryar yihiin adigana maaragtay emotional aad tahay oo wax kasta aad gocanayso isbata inaad aragba ka habartaa maha adoogaana maha waa ilma isu dhasheen waa xumaada xiriirka soo maaha kumana ixtiraamo wadan shisheeyaa joogta xaq waxaa u leedahay inaad isdifaaciisa marka maxaa waay inaa avoid garayso inaa aragta asaga ilmaha laaka xaqa u leeyihin soo ilmahayga way ku koreen way arkayeen aabahood halkaas ugu geynay marmar guriga ugu iimaanay wadaay marmar guriga ugu iimaanay oo fadhigo la fariisanay anigana qolkeeda aan ku xabisanahay bas ninkan aniga ajnabi aan kala nahay aragtida inta soo dhan wada dibsanaysa waatay hadan markaan dib ugu noqdo maxaa waxaan la isweydiinayaa okay suicide iyo reverse teams ba taagnay Soomaaliya maxaa ka istaajiyay oo farajkii ilaahay ku soo diray ka joojiyeen ishaligtood dhibaataysan maxaa wax badan abaayo horta nolosha adiga ku soo marta marka nolosha adiga wixii ku soo maro wixii aad ka ku soo maro of course waad gocanaysaa waad ooyaysaa saa hadda sameeyo kale laakiin waxaa rabaa in adiga wax barasho ku noqdaan inaad adiga ku aarsato inaad adigu maaragtay ku dagaal tagto dambe lama rabo aniga dhibkii waa ka baxay hadda dhibkii aniga waa ka baxay يوسف قرادني ما أبيوساي أو أمين وحشاقية هبينكي إسلا حلقي ماشي أتاقنيد محاك مو كلفينا تشوشي ساقو آنكي آهاينا دو حسياشو أو شغلة دقيقة داد ماشي أتاقنيد إسلا هايدي ستيل مركز إسلا هايدي ستيل دقيقة داد ماشي أتاقنيد أو بيدا تاقنيد محاكو بدلي كاتشوشي وحاي بدلي هرتو إلهي سبحانه وتعالى وحا إيدنا أدونك أنت سواك قوندون تادحي أدونك وحا إيدنا نوال با إيدنا أدونك أنا مركز وريري oo aan halka taagnaa oo aan rabay inaan boodo waxa horta idaahiy qaabka u booday because calooshayda aad ay u wantaan qof culus ahay sahalku ma kori karo maasha but I wanted to jump whatever happened say dantaba ahaatee waxa ay joojisay gabar markii dambe ay sheegtay inay Jarmal tahay oo dalxiis af Ingiriisi gaja taqaano ayaa waxay ii weydiisay halka uu ku yaalo tiyaatar Hebelow tiyaatar adiga bushaas ka soo horjeeday attention kayga soo jeedisay marka halkii aniga aan ku talamayay see u boodaa attention kayga soo jeedisay gabadhii way ogaatay inaan ooyay aragtay waxay weydiinaysaa waa iska dhaafta garabka iga qabatay qofka yaqaanay meesha waxa ku yaala meel oo dalxiisku marmaraan waa kuraas la fariisto oo webiga lagu sii jasto qofku oo webiga iyo doomaha iyo daawan kara ku yaala kuraastii fariisay kabad waxay igu tiri do you want tea waxaan ku dhahay high blood pressure aan qabaa tea ma cabi karo iyo coffee laakiin دكافة دويها ملها بس كعبي كرام من كافيه نيرا كويلي استيشن كتمبل جيسكيس عن تجني وإفرد يسوي عبيتان كي يقضي دنا وحي قلت لي don't do something stupid and واي هاي أنا
anigana bartaas meelaan ku tukan kara maaha laakiin bartaas waxaan bilaabay astaqfirullah ilaahu cafi laakiin ooyintu waa socota ooyintu waa soo badana because maaha kaliya inaan saad ka ahay isboodadii laakiin waxaa haddana saad ka ahay sababta aan ugu fikiray inaan isdilo anoo qof muslima ah dan nolosheedii inaan dib usoo xasuusta yaraanteydii hooyaday aabahay walaalahay wixii dhan ay soo hormarmaraan deetana aan go-aan qaata ah inaan go-aan gaaro go-aanka soo gaaraya marka guriga haddaa tago aniga ma nasan karo go-aanna ma gaari karo hoosteedu ka dhalanaa shaqadina waa iska soo rabaxay kaa maxay noqotay inaan balaakaabka waa lacag badan yahay idinka waa ogtihiin daawade qofkaas wuxuu ahay wariye Aamina Muuse Weheliye haddii aad ka heshay warbixintan fadlan